Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Lamaanaha kala dhibna iyo Alexander Calendar qoyska California ku nool ayuu dhashay ilmihii ugu la yaabka badnaa kadib markii la isweydaariyay bacriminta ilmaha ee loo yaqaano IVF sida lagu sheegay galdacwadeedka maxkamadda laga furay. Lamaanaha kala dhibna iyo Alexander Calendar ayaa sheegay inay u dhalatay gabadha inaan iyaga meel looga ekayn kadib markii la sameeyay baaritaanka xagga hidde-sidaha ayaa la ogaaday in ilmahani ay leeyihiin lamaane kale waxayna go'aansadeen inay dib isku weydaarsadaan carruurta. Ma ahan markii ugu horreysay ee la isweydaariyo bacriminta IVF waa hab ugaxaanta dumarka lagu bacrimiyo manida ninka iyadoo adeegsanayo shaybaar ka hor inta aan ugaxaanta lagu tallaalin ilmagaleenka hooyada. qoyska reer Alexander ayaa hadda maxkamadda Los Angeles ku taalo la koray xarunta bacriminta ilmaha ee magaceedu yahay California Center for Reproductive Health oo loo soo gaabiyo CCRH iyadoo sidoo kale shaybaarka IVTech. dacwadda ayaa lagu eedeynayaa labadani xarumood dacayad caafimaad iyadoo xarunta dami dhacay hase yeeshee labada shirkadoodba wax jawaab ah BBC-da kama aysan siinin eedeymaha culus ee loo jeediyay. shirjaraa'idoo shucuur murugo badani ka muuqatay ayay maalintii Isniinta Mr. Calendar ka sheegtay in qoyskeeda ay aad uga qalbi jabeen isla markaasna ay ku jahawareereen in ay fahmaan waxa dhacay. xusuusteeda ku saabsan ilmahani in dhashay ayaa weligeedba ahaa doonta mid garaafaysan sababo la xiriira in ilmahani inuu dhashay ayaa weligeedba ahaan doonta mid garaafaysan sababo la xiriira in ilmahan aanan anaga lahayn lana siiyo qof kale. ilmahan aan u halgamay inaan ifka keena ayuusan ahayn keeni ayay tiri haweeneydani. waxa ay Mr. Calendar dhashay gabadh midabkeedu madow yahay sida lagu sheegay galdacwadeedka. aad inta ay u naxday ayay dhowr tallaabo gadaal uga degtay miiska umusha ee uu ilmuhu saarnaa iyadoo derbiga ku tiirsatay ayaa lagu yidhi dacwadda. baaritaanka DNA bilo kadib ayaa lagu ogaaday in ilmahan aysan iyaga dhalin. xarunta CCRH ayaa markii dambe lamaanahan ka caawisay inay helaan qoyskii lahaa ilmaha ay dhaleen kuwaas oo iyaguna u dhalatay gabadh aysan iyagu isku hidde-sida ahayn. iyaga oo raacaya habka sharciga ayaa la kala beddeshay ilmihii sanadkii la soo dhaafay. sanadkii 2019 qoys kale oo ku nool isla California ayaa ogaaday inuu dhashay ilmo aan koodii ahayn kadib waxay dacwadeeyeen islaantii ilmahooda caloosha ku qaaday taas oo doonaysa inay iska haysato ilmaha ay dhashay balse xaakim ayaa markii dambe u xukumay in ilmaha la siiyo waalidkii dhalay.